Wasiiru Dawlaha Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo ay weheliyaan safiirka Soomaaliya ee Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid u qaybsamaha safaaradda ee arrimaha tacliinta, hidaha iyo dhaqanka Cabdicasiis Cabdiraxmaan iyo mas'uuliyiin ka socday jaamacadaha Simad iyo Muqdisho ayaa kulamo la qaatay mas'uuliyiinta hay'adda TIKA ee dowladda Turkiga u qaabilsan horumarinta iyo gargaarka dawliga ah iyo hay'adda YTB oo Turkiga u qaabilsan deeqaha waxbarasho isla markaana arday Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan. Dhinaca kale, Wasiiru Dawlaha ayaa waxa uu goobjoog ka ahaa heshiis safaaradda Soomaaliya ee Turkigu ay la gashay maamulka jaamacadda Atlim kaasi oo ku aadan qiimo dhimis loo sameeyo ardayda Soomaaliyeed, wuxuuna ka warbixiyay waxyaabaha ka soo baxay kulamadaasi. maanta waxaan la kulmay madax ku-xigeenka hay'adda TIKA dhammaan adduunka iyo madaxdii kale ee u qaabilsan Afrika, Asia iyo gaar ahaan madaxda Soomaaliya u qaabilsan. waxaan ka wada hadalnay waxay ahayd sida ay TIKA oo qayb qaadan lahayd barnaamijyada waxbarashada iyo horumarinta waxbarashada. waxay noo sheegeen in hadda mashaariic badan ay wadaan, annagana aan u soo bandhignay kaabayaasha waxbarashada maadaama dalka uu hore u socdo loona baahan yahay in la helo برنامج بدنا وحبرشة وحلاوة قبته تاس أيام كوضع هذا الله وإحنا نجا قبلين إن كنت أي مركو هور قيمين كسمين دونا المشاريع ذي وحكي الصعود كدبنا أي حروق صار دونا وحنا أد وراح لو حكم ده ما أنت تيكا إن أي لاب كيو scientific research كيو قيوهاس إني أد نوع عويان تاس نفهمتي وحبضان أي أسن صانري كدبنا وحنا إن شاء الله رجالي نهدو إلى يرادو إن أي صادر سن دونا ضد خبراء حفيز كود حقيق وهالكان كيمت كدبنا قيمين إن الله سمين دونا إن شاء الله تعالى. dhanka kale waxaan la kulannay ayadana maanta xafiiska deeqaha waxbarashada oo runtii dalkan wuxuu leeyahay aad u weyn waxbarashada deeqaha waxbarashada YTB oo si toos u hoos tagta xafiiska madaxweynaha. waxay noo sheegeen arday badan oo Soomaaliyeed inay deeq waxbarasho ay siiyaan oo la socotaan systemka dowladda Turkiga ay u marto waxay tahay waa qaab online ah oo ardayda ayaga intay apply gareeyaan systemkaas la marsiyaa. waxaan runtii aad uga mahad celinay systemkaas hufnaantii ku jirto ay isticmaaleen iyo in aan u sheegnay ardayda ay wax soo barayaan inay waafajiyaan qorshaha qaranka maadaama ardayda wax la soo barayo marka u dambeysay ay Soomaaliya u soo laabanayaan in fiilalka ay qaadanayaan. waxaan u sheegnay dalka meesha u socdo, waxaan ka uga warbixinay qorshaha qaranka dalka iyo maadooyinka loo baahan runtii in xoog la saaro, waana isla qaadanay in hadduu Ilaahay yiraahdo ay maadooyinka kordhin doonaan. sida ay isla mid maanta waxaan soo booqnay ayadana kuna lahayn jaamacadda Atlim University oo ah jaamacad aad u weyn oo arday badan oo Soomaaliyeed ay dhigtaan. jaamacaddan waa jaamacad foundation ah laakiin waxa ay siiyaan arday Soomaaliyeed scholarship oo partial scholarship waxay dhahaan ama qayb ahaan ay scholarship u siiyaan. ayagana waxaan aad u wada hadalnay sida Soomaalidu u garab taagan yihiin ardadaas ayaga iyo dowladda Soomaaliya gaar ahaan safaaradda waxa heshiis wada galeen oo ah in ardadaas mar walba scholarship xaafad la siiyo ama wixii ka badan ay siin karaan. waxaan kaloo ka wada hadalnay madaxda jaamacadda sidii xiriir oo la yeelan lahaayeen jaamacadaha dalka ka jira isu dhaafsan lahaayeen macallimiinta iyo ardayda iyo aqoontaba intaba loo wadaagi lahaa. sida islamada waxay la kulmeen madaxda jaamacadaha ila socday ayagana oo qaarkood ay hore heshiis wada galaan qaarna hadda ay rajeynayaan in heshiis wada galaan. wafdiga ka socday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey kulamo ula yeeshay wasiirka waxbarashada ee Turkiga, madaxa hay'adda tacliinta sare ee magaceeda loo soo gaabiyay YOK iyo mas'uuliyiinta hay'adda arrimaha diinta u qaabilsan dowladda Turkiga. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Daruush, magaalada Ankara.